waxaa maanta si rasmi ah xarunta golaha aqalka sare uga furmay kala fadhiga afraad ee senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana ka qayb galay gudoonka iyo xubnaha golaha aqalka sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha gobolka Banaadir safiirada qaar ee dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya culimo wadiin iyo xubnaha labada gole ee baarlamaanka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo hadal kooban ka jeediyay munaasabada lagu furayay kala fadhiga afraad ee aqalka sare ayaa ku amaanay senatarada aqalka sare hawsha wanaagsan ee ay ka hayaan laanta sharci dejinta ugu horeyn waxaan idin soo gudbinayaa golaha sare ee aqalka sharafta leh ee golayaasha sharci dejinta mid kamid ah labadaba kii ugu mudnaa labaduba waa inoo mudan yihiin salaan aan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo rabay jeclaana inuu idinkala soo qayb galo si rasmi ahna inoogu furo kala fadhiga afraad ee aqalka sare ee golaha baarlamaanka laakiin sida aad ka warqabtaan hawl qaran oo muhiim ah oo kamid ah fidinta amniga iyo dib u xoreynta goobaha ay cadawgu gacanteena nagaga hayeen qaar kamid ah ku hawlana xalayna ku hoyday shaqadaana gacanta ku haya uu ku dadaalay inuu idin yimaado laakiin salaan diiran ayuu idin soo gudbiyay aad baan u jeclaa inuu xafladan maanta furo waa si idin la jooga mar walba qayb qarankeena kamid ahna waa ku sugan yahay hadda sidoo kale dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Caashi Cabdullaahi oo khudbad u jeedinaya mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabada furitaanka kala fadhiga afraad ee golaha aqalka sare ayaa ku dheeraaday ka hadalka howlaha horyaala fadhiyada senatarada isagoo sidoo kale carabka ku dhuftay sharciyo badan oo uu xusay in looga baahan yahay inay meel mariyaan senatarada Cabdi Caashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha federaalka waxaana uu xusay in loo baahan yahay in laga baaraan dago sida ugu habboon ee loo hirgelin karo federaalka dardargelinta howlaha korjoogteynta xukuumadda dhexe iyo iyadoo diiradda la saari doono wasaaradaha iyo xafiisyada ugu muhiimsan 7 ka shaqaynta sidii loo heli lahaa wada shaqayn dhab ah oo dhex marta baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda dhexe iyadoo aragti midaysan laga yeelanayo shuruucda hortabinta u leh qaranka 8 guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa isku raacay in kalfadhigan ay kulmaan labada guddi joogto lana diyaariyo xeer hoosaad wadajir ah oo u yeesho baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqalka sare iyo golaha shacabka gunaanad golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu diyaar u yahay inuu kaalin mugle ka qaato kamira dhalinta wada xaajoodyada la filayo inuu u dhaxeeya labada heer maamul ee dawladda isla markaana wuxuu u heelan yahay inuu meel mariyo shuruucda mudnaanta hortarinta leh ee qaranka ugu dambeyn waxaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ugu baaqayaa nabad iyo midnimo